السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر وها سحب القناة كينا أمير ده. إن شاء الله ما أنت مقال كأنه كسب سيسية هاي. أنا جا مركز سومالي جوجو تيك توك لعين كسمين كرا. هذا هو سحب المقال كمحارين أقوله وذا أقول بقى. كاسو مركزي عن لينك الصومالي ده تيك توك ريسك هذه الوين عن رأش كبيحن دونه يقيب عن أني نيجي شوي دونه. سحب الكسر وهذا برنامج كيني سبتي إيو تيك توك. حتى العقد ولا قسمها. توقع معها العقد وكمبيني كوسينايو والعقد قف شخصية oo adiga ku taageero oo ku soo diray qof Soomaaliya joogo malaayin ee daawato oo TikTok lacag uu ka sameyn karo hadda waxaynu gudbi karnaa markaas taa aniga aan ka dhahayo hadda saxab intaan muuqaalka u gudagelin waxaan ka codsanayaa si aan maaragtay aad fiican wax ugu fahanto inaad soo daawato muuqaalada kuwaas oo markaasi laba video aan ka sameeyay oo ah sidee TikTok lacag looga sameeyaa adigoo joogo Soomaaliya hadaba saaxiibayaal barnaamijkani waa markii labaad aan soo daayo marka haddii aad taamir kursa kana soo boqotay fadlan waxaan ka codsanayaa kanaalka subscribe saarto muuqaalkana ay kiilo markaasi inaad like noo saarto aad iyo maasan tahay fadlan subscribe saara take wax yar ayaa nooga dhiman waxaan niga mahadcelinayaa sida sharafta leh aad ii gaarsiin markaasi 9000 oo subscribers aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal haddaba waxaan ugu koowaad aan u horgelayna waxayeen ولا وريستي تيك توك هذا ما لا وريسن سنة كهر وين يكهر يلا وريستي أمريكاسي بلاد بشابي أديك أفر تيك توك ريسا يشوشو يو ريتاش كون ريتاش مركا سد حاس يويل كران مي إسانجين محمد أنها إن شاء الله ملينيا ويل كاس نكنا ينص صاريا ويل كاسي أفر تاس يلا وريستي مركا أديك كون ريتاش يو يعني شوشو عبد الله مقال كله ودرا وحا وريستينا وحنا وريست مركاسي dalsan TV ayaa waraystay marka kanaalkooda ayaa lagu soo diiyay markaasi muuqaalkan oo dheer marka wiilkan yani wariyaha ayaa YouTube channel uu soo dhigay magaciisa waxa la markaasi Raaga Media marka waa ku dhufan doonaa waan markaasi isla falanqeyn doonaa horto haddii amida ka ordaanay taasoo markaasi muuqaalada yani la soo gelinayo anagu waxaan hadda rabaa inaan maartay falanqeeyo waa laba qof wiil oo markaasi Cabdi Xasan iyo hadda kan ku sheegay marka labadani kun wuxuu soconayaa markaasi 5 daqiiqo midna wuxuu soconayaa 7 daqiiqo marka adiga la rabaa ma aragtay inaad muuqaalka taad baaritaan ku sameyso description ka ayaan ku soo dhigayaa halkaas si fiican oo soo daawo labada muuqaalba markaas ayaa la yaan markaas aan marka hadda waxaan ka soo qaadanayaa ma aragtay inta ugu muhiimsan kaliya ayaan ka soo qaadanayaa marka adiga ayaa la rabaa markaas inaad video soo daawato marka insha Allah waxaan rajaynayaa markaasi inaad muuqaalkan dhameysan doonto okay anu gudagal markaas muuqaalkeena okay hadda waxyaabaha in dad badan isticmaalaan ama dad badan waxyaabo anshaxa ka baxsan ay sameeyaan waxa loo sameeyo waxa kamid oo la leeyahay meesha lacag baa taala lacag ma laga sameeyo horta bahalka lacagtan laga sameeyo sidee loo sameeyo wiilka wariyaha ayaa wuxuu weydiiyay markaasi TikTok lacag ma laga sameeyaa marka waxaan arkaynaa markaasi isaga wuxuu ku jawaabo horta lacag waa laga sameeyaa laakiin wax yar rabaa inaan ka hormarsado adduunka system oo isticmaala anaga wadankeena Soomaaliya wali systemkaas okay isaadu wuxuu dhaaf markaasi lacag waa laga sameeyaa horto TikTok lacag waa laga sameeyaa waa run laakiin wuxuu ku leeyahay system ayaa looga sameeyaa marka waxaan eegi doonaa markaasi systemka looga sameeyo Soomaaliya wali systemkaas ma soo gaarin adduunka systemka oo isticmaala waxay tahay sidoo markaas sida sheegay wuxuu dhahay annaga yani wali yani ma soo gaarin Soomaaliya systemka TikTok lacag looga sameeyo cunuga hadduu yar yahay teamba uu ka yar yahay socialka looma ogola hadduu soo galana waxa ku socoto waa la fiiriyaa macnaha marka inta waxaan muuqaalku dheer yahay hadda kama hadlayo markaasi muhiimada marka waxaan geeyay doonaa qaybta muhiimada uu ka hadlayo hadda yani wuxuu leeyahay 8 jir ilma ka yar looma ogola TikTok lacag waa laga sameeyaa waana run qaabka loo sameeyaa waxay tahay wadankeena Soomaaliya qaabka looga sameeyo live-ka game-ka la dheelay kaliya horta looga sameeyaa hadda wuxuu dhaa maaragtay TikTok yani waxa lacag looga sameeyo waa qaabka maaragtay TikTok giftiska ayaa lacag looga sameeyaa marka waana runtii Soomaaliya haddii aad joogto TikTok giftis ma lacag u sameyn doontaa marka aan hore u socono
qaabka fiidiyoyada la dhigo wadamada qaar ama wadamadaas adduunka ka jiro waxayna dheeryihiin fiidiyoyada caadiga ay soo dhigtaan ay lacag ka sameeyaan ma fahantay annaga laakiin weli lama soo wuxuu dhahay yacni wadamada qaar fiidiyowada maaragtay ay soo dhigaan ay lacag ka sameeyaan marka hadalkaas oo runtii sababtoo ah wadamada qaar bisa lacag laga sameeyaa Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Africa oo dhan hal wadan oo ku jiro TikTok lacag laga sameeyo sheegay haddana video daawanayso laga yaabaa xilliga daawanayso aan sheegi karo laakiin in yani Soomaaliya loo soo furay ama waa loo soo furi doonaa mustaqbalka hadda waxaan u gudbin kaasi Bilal Bulshaabi marka waxaan eegi doonaa Bilal Bulshaabi wuxuu ka dhahaa laga sameeyo TikTok-ga ma aha lacag uu company-gu ku siinayo waa lacag qof shakhsi ah oo adiga ku taageero oo ku soo dirayo oo gift wuxuu ku iibinayaa wax gift la yiraahdo ku sheegay yani asaga runta uu ka wareegay oo howlaan la baahneen buu galay marka waxa runta ka hadlay waa Bilal Bulshaabi wuxuu dhahay TikTok-ga yani waxa qaab yani waxa lacag aan uga sameeyna anagoo Soomaaliya joogno qaab ah markaasi yani TikTok giftiska oo dadka ma aragtay anaga company lacag nooma soo diro waxa lacag noo soo diray ayuu ku leeyahay dadka ma aragtay shacabka ee nagu xiran ayaa giftisiyo noo soo diro yiraahdo akoonkaaga ku soo galaysa TikTok markaas kadib adaa kala baxay qaabka ugu la baxay marka wuxuu dhahay markii aqoonka kugu soo dhacdo ayoo lacag ahaan ay ku sameeyay giftisiyo ku diraan marka ayoo lacag laan ay ku soo dhacaysa marka wuxuu ku leeyahay markaasi qaabkay kugu soo yani aad ogala baxaysa ayoo hadda noo sheegay marka waa qaab easy ah oo fudud laakiin wadooyin fara badan maraysa wadooyinka maraysa waxa kamid ah in aad aalad application la yiraahdo Paypal inaad ku shubto akoonkiisa qof waliba dibadda jiro inaad ugu shubtaad istaqaanaan oo aad ku kalsoon tahay kadib qofkii xawaalad kugu soo diray oo toos kugu soo dhacaysa halkaasna laftigiisa waa runtii sababtoo ah yani wuxuu ku leeyahay qof ayaan maaragtay markaan lacagtaan aan noo aroorto kun door noo gaadho qof ayaan u dirsanaa xagga dibadda sababtoo ah yani Paypal hadda la taagan yahay Paypal Soomaaliya waa laga xidhay marka qofkaas ayaan u dirnaa kadib isagoo iyadoo door ahaan ayuu akoonkaana caadi ugu soo ridaa marka taasna waa runtii mar waa inaan maaragtay muuqaal ku sii dheeraado labadooda haata yani waxa ka cad inkastoo shushu iyo kumiritash aan la wali la wareysan labadooda yani waxay ku leeyihiin TikTok-ga qaabka lacag uga ma sameeyno marka waxaynu eegi doonaa markaasi wiilka leeto ay markaasi asagana cabeed waxay tahay in aan ogaano ma laga sameyn karaa oo macquul ma tahay masa ma laga sameyn karo taasi ayaa rabnaa inaan falanqeyno muuqaalku u dheeriyaa marka wuxuu dhahay kuma sii dheeraanayno marka waxaan rabaa inaan maaragtay ma laga sameyn karaa TikTok-ga lacag mise lagama sameyn karo siga wada fudud oo lacag uga sameyn karto haddaad joogto Soomaaliya ama Africa videogan fadlan like saar wuxuu dhahay haata yani asagu wuxuu haystaa wiil maaragtay TikTok intuu aniga laftii waan arkay TikTok intuu soo galay ayuu wuxuu sameeyay markaasi ayuu dadku been u sheegay wuxuu dhahay TBN isticmaala TikTok lacag waad ka helaysaan marka videogan haddii aad maaragtay soo daawato waxaad yani dareemaysaa ma yani aad ka hadlayaa in ay TikTok-ga ay Soomaaliya lacag looga sameeyay marka hadda waxaynu gudbi karaa markaasi taa aniga aan ka dhahayo okay saaxiibayaal aniga horta waxaan ahay TikToker laftigii waan aniga hadda daawanaysa YouTuber ka ahay laftigii waxaan ahay TikToker oo TikTok waan isticmaalaa marka TikTok-ga waan isticmaalay muddo dhan 1 sano waxaan markaas inaan TikTok lacag ka sameeyo wax walba waan sameeyay dadka way dhaamaan iga $1000 ka sameeyay wallahi da $1 xitaa kama sameeyeen marka dad badan way jiraan maaragtay TikTok-ga lacag ka sameeyay marka yani aniga haatan markaasi aan u laabtay horta ma joogi Soomaaliya badana waxaan ka hadlaa muuqaalo yani Soomaaliya marka hore waxaan uga hadlay muuqaal sidee Soomaaliya lacag loo sameeyo adigoo joogo Soomaaliya oo joogo sidee lacag loo sameeyo muuqaalku waa kana mid labaad soo sameeyay laba muuqaal aan ka sameeyay marka haddii aan soo laabto waxaa jiro markaasi tijaabo aan sameeyay wiil xagga joogo ayaa dibadda wadamada loo ogolyahay joogo ayaa markaasi TikTok-ga ayaa markaasi horta dhahay lambarkiisa ku xidh markaan lambarkiisa aan ku xidhay yani ayaa waxa dhacday in markaasi aan waayo TikTok creator fund wax walba samee si kasta isku gilgil yani wax walba samee taasi waxa ka daran dhigi kartaa adiga Ethiopia joogo ayaa maaragtay ayaa sidoo ku dhacsan marka wiil kale ayaa la soo xiriiray xaggaasi Facebook iyo la soo xiriiray marka fariintay u soo qoreen waa fariisatan ah taasoo markaasi ay ku leeyihiin TikTok-ga yani wadada meesha aad joogto yani lagama heli karo marka adiga message inta uu tuuro marka codsaday ay message yani diray marka sidaasi ayay dhaheen marka hada ala kulli xaal Soomaaliya anigoo joogo TikTok-ga lacag ma ka sameyn karaa
su-aashu waxayeen maya waad ka samayn kartaa siduu bulbaabila bashaawi noo sheegay laakiin qaabka fiiska ogama samayn kartid hadda yacni hadda dadku badanaa horto xilli dayn waxaa ma diri karaan oo qofka bini'aadamka uu xisaabtamaya oo noloshiisa inuu ku maareeyo lacagtu hadda haysto ayuu ku xisaabtamaya marka xilli dayn ma helaysid qof daawadahaada hadduu maanta mid kuusoo diro mar laad lagama yaabo inuu kuusoo diro xilli yacni qofku daawado aad helaysid ma ahan يعني أدهلي سيد معهن وكوسة دراي مركا تيك توك هذا لعب ملقى سميع ما يسومالي ده بتكوشرتو يعني تيك توك لعب كما سميع شو عبد الله وحياة كمان لو تلاقي تيك توك لعب بقى يقول شرط أنا تليفون كي لعب يقول انت ايضا براك اللي سمينا أوكي marka sababta waxa sababay xaytay markaas lacag gift yani muuqaale leef gashay ay gift oga sameeyay marka TikTok lacag waxa laga sameyn doonaa yani laga sameyn karaa giftiska waxaan rajaynayaa markaasi inaad maartay muuqaalka wax badan ka faa'iideen insha Allah waxaan rajaynayaa dhalinyaro badan ay igu soo taageerayso sidee saaxiib lacag uga sameeyaa sideen TikTok sideen sameeyaa sida iyo tilmaam sideen sameeyaa waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan aad daawan doontaan TikTok wax lacag oo laga sameeyaa malahan adigoo jooga Soomaaliya qaybtan isku la garanay waxa ku daawan doontaa hadda inaan ka saada maaraf fiidiyoga waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka wax ka faa'iideen inta ku soo bilahay tawfiiq wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh